waxaan leenahay arrinka iyada waxa la isla gartay in labadan nin la israaciyo waxa weeye xaqi uu lahaa la mariyo hadduu ka dilay yahay ka dilkii la dilay yahayba taas waa intaa weeye qodobka kale waxaan sheegaynaa maxkamadda ka sare ciidamadu laba maxkamadood ma leeyihiin saddex maal shacbiga saddex leh tii labaadna waa la amray waxa weeye maanta waa tabaabashaysanaysa in bari soo gasho bari soo galayso ayaa iyadana la noo sheegaya waxa leenahay waxaas wax xun buu ahaa wax aad u fool xun buu ahaa in saraakiisha la laayo wax fool xun weeye in dadka gardar lagu dilaan wax fool xun weeye taadan ka nimaadno waxaanu leenahay waa run dhib baa dhacday cid bay ku dhacday inay gilgishaan waa xaq weeye inay gadoodaan waa xaq weeye kuma ceebaynayno kumana cadhaynayno waxa weeye waxay xaq u leeyihiin ayay dadkaas ku gadoodeen laakiin waxa waxbaa dheer baryahanba waxbaa dheeraa dad baa meelo badan wax ka soo tayaaqsada dadkaasi qurbahay u badan yihiin shaqo aan fidma ahayn way garan waayeen hebel iyo hebel baanu naqaannaa heblaayi heblaayaan u naqaannaa waxay ka shaqeeyaan waxaan macno lahayn waxay ka shaqeeyaan dadkii degganaa dhulkani ee degganaa ilaahay ku beereen nabadda ku noolaa ee hagaagsanaa ayay waxa weeye fidma la daba wareegaan waxaan leeyahay war inagama soconayso cid waxay naga soconaysaa moobilkayay ku jiraan halkanay ku duuban yihiin hebel iyo hebel baan wada garanaya inagama soconayso ha iskadeedina wakhti badan ha ku luminina dhulkani waa nabad waa dal waa dawlad heble wax ka dhaceen heble ka soo yaaca war waxaas wax soconaya maaha wakhti badan ha ku luminina wakhtina ha iskaga luminina waxaydaan qaban karin ha isku luminina dadka masaakiinta ee shakhsiyaadka ee mar walba la soo kicinaya kolka wax yimaadaan la soo kicinayo waxaan leeyahay warka waan tooba ragga iyo carruurta yaryar la soo kicinayo ardayda foonfoorada iyo meelaha la soo kicinayo ee qofka loo soo kicinayo ee marka qaarkood dalka dibaddiisa laga saaro meelo kale wax laga soo duuduubayo ama la keenayana waxaan leenahay arrintaa iyada ka waan tooba ha ku daalina ciddii ka waan toobi weyda haddaan odayaasha iyo culimada iyo dadweynaha nahayna waxa weeye waxaanu go'aansannay inaanu gacan adag ku qabanno gacan adag baa lagu qabanaya islama warwareegayo rabshadani kama soconayso waxa weeye sool dhibta ka socotana waxaan leenahay allah ka qaboojiyo kii dhibalkan la doonayo taasaanu leenahay allah ka qaboojiyo aad iyo aad baan waxa weeye ayaan uga tiraayinsannahay waxaanu ku qabannay waa saldhiggii dhexe weeye wahudheellaannu la teglayn hadday wanaagtahay waa dhibta iyo dhibaatada taale daraaddeed ayaan ugu qabannay shirkayagu mar walba wuxuu ka socdaa halkaas saldhiggan wuxuu ka socdaa barasaabkii baa yimidday maayirkii baa yimidday waa laisku wada yimidday waxa weeye go'aankii halkaas ayuu gobo ku noqday waxaan rajaynayaa oon ku boorrinayaa maxkamadaha gacanta arrintaa ku haya iyo baadhayaashana inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u dedejiyaan intaa markaan ka gudbo arrintii waxay maraysaa runtii waa fidnaddee waxaanu waa fidno dhimashadu way dhacdaa laakiin tani fidnay xambaarsan tahay ilaahay fidnadaha inaga qaboojiyo marka koowaad waan baryaynaa ilaahay baan baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa mar labaadna hawshii dee maydkii waa yaallaa waad og tihiin oo tallaajad buu ku jiraa waxaana la isku raacay oo dawladdii iyo culimmadii iyo odayaashii iyo cid walba iyo eheladii iyo qaraabadii in muxuu ahaa maydka aan la aasin ilaa waxa weeye ninkii gacanku dhiiglaha ahaa maxkamaddii waxa weeye marka maxkamaddii la saaro sharciga dabeetna markaa lagu fuliyo wixii sharcigu markaa ka qabo oo addee qisaastii ilaahay baa wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab arrintaasi markaa dariiqeedii bay maraysaa si fiican bayna u socotaa waa laga yaabaa xagga ilaahay dee war uma hayno dee wixii ka iman doona laakiin sidoo qorshuhu yahay inay 2 cisho ama 3 cisho gudahood ku dhammaato ayaan aad ugu rajo weynahay marka waxaan doonaynaa markaa arrintaa kama annaan fadhiisanin cid walbana diyaar bay u tahay waad og tihiin yani waxa weeye in meel walba laga hadlay aan dadka u sheegaynaa arrintaasi meel fiican bay maraysaa halkanna way ka dhici doontaa insha allahu sidaan ilaahay uga baryaynaan ku rajo weynahay ee la naga ballan qaaday halkanay ka dhici doontaa marka intaa horta waxa weeye dadku ha ogaadaan ta kale waxa weeye dee arrintana way dhacdo waa dil oo waa si xun bay u dhacdo waa dee fidnadaas laakiin dad baa ka faa'iidaysanaya waxaan rabnaa dadka ka faa'iidaysanaya ee fitanta markaas sii boonboonaya
inay ilaahay ka cabsadaan arrintaa in laga joogsado fitnadu waxa weeye madaxa la qabtay leeda daba la qabta male nabiguna wuxuu yidhi alfitnatu naa'ima lacana allaahu man ayqadahaa war way hurudaahay nagu kicinina qadiyadda xalkeedii culummadu waxay garteen in lagu xalliyo sida kitaabka ilaahay uu ku xalliyey arrimaha dilka ah ee camdiga ah oo ah in la qisaaso aayaadka qur-aanka ee caddaynaya in arrinkaa la fuliyo oo ilaah subxaana wa tacaala uu leeyahay walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta nolol baa idinku filan ayaa idinku sugan marka walaalayaal mowqifkaas culummadu la wadaagaan salaadiinta iyo dhammaan xukuumadda ciddii arrinkaa gashay waxaan aad iyo aad u taageersannahay in qisaastaa la fuliyo si loo helo nabadgelyo si loo helo ammaan wanaagsan taasaynu aad iyo aad u adkaynaynaa waxayna naga ballanqaadeen xukuumaddu ugu horreeyaan guddoomiyaha gobolka laamaha dhammaan amniga ee gobolka in hawsha ay wadaan taana waa laga warsugayaa dhinaca kale waxaan farriin u diraynaa dadyowga qaarkood ee ka faa'iidaysanaya barnaamijkan arrimo kale dhex wata shacbiga booran waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qofkii waxa kharibaya inaan dhinac uga soo jeesanno inaan nabadgelyada adkaysanno inaan wanaaggeena adkaysanno taasaan dhammaan dadka ugu baaqaynaa waxaan u joognaa sidii ninkaa sharciga loogu fulin lahaa iyaan u joognaa aan hadeeradoo saldhiggii booliiskana u joognaa meel kastabana uga hadlaynaa dadku nabaddiisa ha ilaashado mooradiisa iyo maalkiisa iyo guryihiisa iyo dadnimadiisa iyo noloshiisa nin walliba ha ilaashado dhibaato waxaa inoogu filan dhibta ka socota laascaanood iyoynaan tu kale beerin nabaddaan ilaashanno sharcigana aan ilaashanno ilaahay 3 qodob buu wixii xaqdarre wax ku dilo ku fuliyo ninkuu haddana warisadaa lahoo inay saamaxdo inay diya qaadato inay disho iyadaa leh laakiin maanta waxaan u taagannahay sidii nabaddu inoogu xasili lahayd in ninkaa maxkamadda la geeyo markhaatiyaashii lagu oogo 2 maxkamadood istaba maraan midna maanta way joogtaa tii kalena codsigeedii waan samaynay way soo socotaa waa la soo dirayaa ha ku samirno nabadda aan ilaashanno mawtifka iyo haddee wax suxmo abuurka aan ka dayna dadka iyo dalka iyo diinta midna yaynaan qaaqul ku samaynine sidaa haddee aan ku samirno sharcigii waa la marinayaa aan ku samirno maxkamadihii waa diyaare aan ku samirno aan sugno haddii ilaahay idhaahdo insha allahu tacaala biidnillaahi kariim ree booromow intaasaan idinku dardaaraynaa ree awdalow intaasaan idinku waaninaynaa reer awdalow intaasaan idinku wacdinaynaa aan sugno sistamka maxkamadaha iyo markhaatiyaasha waxaa la gartay culimo salaadiin maamul cuqaal dhammaanba intii halkaa iskugu timidday waxaa la gartay in la israaciyo oon la kala reebin ayaa la isla gartay marka waxa weeyaan waxaan ummadda dadweynaha u sheegaynaa magaalada gobolka awdal ama magaalada boorama war ilaahay baa riday dilka laakiin yaan lagu meeraysan sabab laga dhigan dadka kuwa ama dibad ha noqoto ama gudaha ha noqoto kuwa intay moobilka yar wax iskaga duubaan boorama waxaasaa ka socda maxaasaa jira waxaasaa kali waxa leh waan adeer boorama waxba kama socday nadaaya nabad baan haysannaa wanaag baan haysannaa ilaahay baan nasiyo lagu shukriyaynaa tanna intii gacantaa lagu hayaa maamul iyo culimo iyo cid walba gacantaa lagu hayaa insha allah waana la israacini marka waxa weeyaan ha ku marmarsiyoonnina nabad baa naas luuga nabad baa